hooyadii dhashay cunugtaan maanta agteeda kama noola li'anna gabadhan ayadoo meel kuleel dhigtay oo haddana meelihii dawaaq ay joogaan inay meeshii dhigtay bay kaga tagtay hooyada Soomaaliyeed oo wax dhashay markii sidaas oo kale ay aragto baarkeedu uu gadoomaya maanta qiyaam markii la gaaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa idal maw'udat su'ilat bi ay dambin qutilat waa la weydiina maxaa loo dilay maxay haleeyeen maxay kasbadeen waa loo weydiina maanta cunugtaan yariista dhulka iska qaadi karin wallahi ninkii daawanayo qalbiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtiisa siga gidiyo xaqarabna gabar walba muslimiin oo wax dhashay oo caloosheeda jilcanta in gabadhan yariista ay u soo gurmato gabadhan ay garab istaagto maamada haysay ayadaba in ma aragtaa la garab istaago ay mudan yihiin wax kasto ku baxaayo lagu bixiyo si ma aragtaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa aan ugu gaarno dhamaanteena inaan garab istaagno ayna mudanta dugsiga aan joogna aan dhigno waa kana gabadha markii la soo qaaday hooyadeed halkaan ma aragtaa ay soo dhigtay banaanka caday keentay banaanka ay gabadhi ku gantay sidaas ayaa ma aragtaa gabadhi aan dhulka ugu soo qaadnay markii gabadhi dhulka soo qaadnay alxamdulillah iyadoo rafanayso halkaan oo jakhiyaan iyo iskiga jiro sidaas oo aan ka cabsanay eeyihii ay cunaan sidaas oo soo qaadnay marka meeshaan banaankaan cad ay gabadhi ay iska dhigtay wayna ka carartay sidaas aan marka ku soo qaadnay madrasada aan joognayna waa kaasa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah rabbil aalamiin إلى ما دسكال جل جلاله سيدا أركيسان وحجل به قصارا وقورير الصوماليات ودعنا رون أهانتي قفك مسلم كأه وآد وحنوسنا يمركو مخبر جودا نبتي قصارا شلي أي هوية سوقنتي وحيكو سوقنتي ميل معركة مدرسة عن معلمين تكنا هاي meel u dhow ay ku soo gantay xiliyada waxay ku beekneed 7 saac oo duurnimo ay ku beekneed waqtigana waqti aad kuleel badan ayuu ahaa gabadhii ayadoo dhulka taalo oo kuleelkii la rafanayso oo run ahaantii qofkii arko oo damiir leh oo muslimnimo ay ku jirto oo marna uusan u dul qaadanaynin hooyada Soomaaliyeed oo wax dhashay markii sidaas oo kale ay aragto baarkeedu uu gadoomaya waxa dana la yaab leh in gabadhii intay soo qaaday ay meesha kuleel ah ay dhigtay iska jiifisay ka tagtay gabadhii ayadoo meeshii la rafanayso kuleel oo meeshii ku qaaban ay ilmo yar yar noo soo socodsiin ayadoo meeshii ay ku cun rabo ilmihii markay noo soo socodsiiyeen anaga macallimiintii waa soo kala orodnay alxamdulillah gabadhii gacanta baan ku soo dhigay gacanta markaan ku soo dhigay maamo khayr Allah siiye oo maamooyinka dugsiga kamid ah oo daris la ahayd meesha ayaa isla markii soo baxday ayada ayaan ma aragtaa aan ku wareejinay maamooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan awalan kula dardaarmaynaa waxaan markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala calooshaada u geliyo hadii xirag oo xalaal oo ku galay iyo hadii xirag xaraan oo ku galay cunugii caloosha Ilaahay ku geliyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala banaanka soo saaray in ilmaha sidaan loogu ciyaaro oo ayagoo dhulka aan iska qaadi karin oo aad sabiyaan u ah in banaan lagu tuuro oo banaanka loogu soo tago run ahaantii waa wax qofka muslimka marna aanan ku habooneen qofkii damiir leh oo danqanayo sidaas oo kale oo lama dhaqmayo waxaan rabnaa marka in muslimiinta walaalaha muslimiinta ah nin walba oo ka xanuunsanaya ilmaha Soomaaliyeed in ilmaha sidaan loogu ciyaarin dada maanta ilmo la'aan ay haysaa meel walba u tagaayo dhaqaale walba ku bixinayo dadna si fudud ay intay ku helaan ay banaanka ku gamayaan gabadhan banaanka lagu soo tuuray waatana alxamdulillah waa loo dadeeyay waa la qabtay waa la daryeelay inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadi way waa la isweydiina maalinta qiyaamo ilmaha sidaan loo dhibaataynayo oo inta la dhalo oo la iska sii gamayo oo la dilaayo waa la isweydii doonaa maalinta qiyaamo markii la gaaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa idal maw'udat su'ilat bi ay dambin qutilat waa la weydiina maxaa loo dilay maxay haleeyeen maxay kasbadeen waa loo weydiina hooyadii dhashay cunugtaan maanta agteeda kama noola li'anna gabadhan ayadoo meel kuleel dhigtay oo haddana meelihii dawaaq ay joogaan
inay meeshii dhigtay bay kaga tagtay saacadana saacad aad u kuleel badan ay tahay xataa dadkii waaweynka ah aysan u adkeysan karin marka in sidaan ilmaha loogu ciyaaro run ahaantii waa waxaan qofka muslimka uusan u dulqaadan karaynin ciqaabta ilaahan ka dhalanayso subxaanahu wa tacaala marka walaalaha muslimiinta gabdhaha muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilmuhu awood calooshooda ku beero inay ilaaliyaan inay sidaan oo kale ay u dayacaan gabar meel iskaga gamayo oo lagu tuuraayo qashin ma aha waa awood waa ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurkiisa waxaan dhammaan aan kula dardaarmaynaa in ilmaha la xifdiyo la ilaaliyo أستاذ وما سنتهي جودة حتى السوري دي أو مسوق جودة طبعا والدين علي لكن الصوماليين أنت قبل وحنا هاي إن لم يريدون والدكتورة الأول كنا واحد من كم دي هاي نبرد عن الصوماليين